dhibaatada falastiin haysata ma aha mid falastiin oo qura haysata waa mid adigana ku haysan doonta haddii aad ka indhaadegto waayo dee ninka walaalkaa soo dilay adigunba kugu soo socdaa ninka masjidul aqsa ku ciyaaraya ee maanta ku dhex boodboodaya adiguna aad daawanayso dee berrina xaramku kugu iman doonaa haye maxaad samayn doonta bal waaye ma ducun baad la soo taagnaa ducada dee ilaahay ficil samee buu ku yidhi aan ka aqbale inta waxaad wadaa ilaahay oo ilmaysi guursan maaye ilaahay subxaanahu watacaala ee wax kasta wuu awoodaa laakiin waxyaaba qaar kaama aqbalayo isagoo awooda run ahaantii wadamadii muslimiintu waxay noqdeen in qiiqaysa oo iyada gubanaysa oo waxaan ku cid gargaartana weyday iyo in baqanaysa oo islaydinkana wadnaa daantiisa laydin goyn doonaa maalintii qaar inaga mida ay gaalo tabadhilif u noqdeen maalintaasaynu taariikhda ka baxnay waad la socotaa inta waddan islaama baaba'ay boqolaal milyan oo qaxoonti ayaa dunyada ku kala firirsan oo wada muslimiina dhammaantood gaal kuma jiro waa wada muslim haye su-aal ma iska weydiisa weli mise ilaahay u gargaartaas unbaad haysaa ilaahay wuxuu u gargaaraa dad wanaagsan oo isku tiirsan kitaabka qur-aanka kariimka ayuu ku yaalaa xal kasta oo ummaddan lagu badbaadin karo kutubta taariikhda haddaad akhrido waxaad ogaanaysaa wixii tegey iyo waxa jira waxay kala yihiin kadib ayaad noqon kartaa qof ka hadli kara arrimaha muslimiinta yuhuuddu berigii ay falastiin qabsanaysay dee saasunbaa loo daawanaya saa maanta loo daawanin baa loo daawanaya dowladdii cismaaniintuna waxay ahayd waqtigeesi nidaamkeedu sii burburaya sii daciifaysay daafaha adduunka yuhuudda laysaga keenay hadday ruush noqoto hadday britain noqoto hadday maraykan noqoto dhowr meeloodoo kala duwan baa laga keenay si loogu sameeyo dhul ay degaan dabeetana dhulkaa falastiin baa la qoonteeyey in la dejiyo yuhuudda ilaa iyo sidii ayay maantana u yaalaan waa kuwa iskale ee maanta dumarka lagu dhex bireynayo ee lagu dhex leenayo carruurta 1891 ayay yuhuuddu bilowday inay dhulkaasi ay degaan bal qiyaas iyo maantay taariikhdu tahay 2021 anagu masjidul aqsa ayuun baynu ku baraarugnaa dhibka loo geysanayay bal imise nafood oo muslimo daahira ku baxay meeshaas imise tacadi ayaa ka dhacay falastiin way baabaday maha iminka dad jira falastiin way baaba'day gaaladuna diin nacayb ay diinteena islaamka nacab yihiin ayay uga aamuseen muslim hadlaana ma jiro nin kastoo muslina oo geesinimo isbida oo ka hadla arrimaha muslimiinta horteena lagu daldalay inaguna waynu daawanayna taariikhu baynu ka reebnaa iyo inaynu idhaahno waqtigii hebel la daldalay balse isma weydiino xaqiiqada dhabtii waxa ay tahay kitaabka qur-aanka miyaynu aaminsannahay mise waynu akrinaa haddaynu aaminsannahay maxaynu arrimaheena ugu dabaqi weyne balsweydii dhallinyaradeenu maxay wadamada muslimiinta uga yaacaan ay wadamada gaalada u aadaan iyaduna waa su-aal markastaad adduunka ka tagto waa inaad sharaf ku yeelatid qof muslina baa tahay ilaahay dadka uu kaa sarraysiiyey gaalka aad daba socotid kabahaaga ayaa ka qaalisan taa markaad qalbigaaga geliso waxaad ogaanaysaa qiimaha aad leedahay